anigu ma ihi mid aan dhamaystirnayn kaasoo sugayo qof si uu u dhamaystiro anigu waxaan ahay qof isku filan hadduu ii yimaado qof wuxuu noqonayaa un xidig qurxinaya samadayda hadduu iga tagana qofka maxaa ka qurux badan samada marka ay saafi tahay yacni mid aan lahayn daruuro iyo xidigo intaba adigu isku day inaad iska kay ilowdo waan kaa tegay adiga weliba tegitaan aysan wax soo laabasho ah gadaashiisa ahaanin waa inaad adna iga dheeraataa ma doonayo inaan mar kale la kulmo wejigaaga huwan farxadda iyo jacaylka dhoolla caddeyntiisuna ay ku duugan tahay khiyaanada qosolkiisuna uu yahay mid runta ka fog dhammaan xasuusihiisuna ay yihiin kuwo aan u qalmin in la xasuusto waxaad ii dhaawici jirtay si maalinla ah anna waxaan kuu sii jeclaan jiray si joogto ah waxaan kuu aamini jiray mar walba jaceyl aan kuu qabo awgii adigoo mar walba ka faa'iidaysan jiray quluubtan kuu nugul ee u saaxiibka noqotay murugada iyo maxabada balse waxaa soo gabagaboobay sifo walba oo aan kugu jeclaa anigoo maqaam saragaynaya noloshayda uma ogolaanayo naftayda inay adiga dartaa wax badan u ilmayso uma ogolaanayo inay u dhaawacanto qof khiyaanada u saaxiib ah awgii qof shakhsiyadiisuba ay u samaysan tahay ku ciyaaridda quluubta daacadda ah si walbay u adag tahay inaan ku ilaawo haddana waan ka tirayaa noloshayda bog walba oo aad kaga qornayd waan ka masaxayaa dhammaan quluubtayda naxariis walboo maalin qura kuu soo gashay la joogitaankaagii waan ku dareemi waayey xasiloono iyo jacayl balse tegitaankayga ayaan allah ka rajaynayaa inuu ila kulansiiyo qof adiga kaa wanaagsan